gabadhan ayaa waxay u yeedhatay gabar shaqaalaha oo Filibiiniyada si ay u daryeesho guriga iyo ciyaalkeeda inta ay shaqada ku maqan tahay. iyada iyo ninkeedu waxay lahayd 2 inamood oo kala 2 sano iyo 6 sano. waxaa timid gabadha shaqaalaha ahayd iyadoo aan raali ka ahayn ninkeedu gabadhiisu in ay kaalinta ay ku leedahay guriga iyo ciyaalkaba ay ka qaadan weydo, laakiin way diiday. gabadhii fikirkii ninkeeda waxay ula timid gabadha shaqaalaha ahayd caruurtii. hooyadii waxay la dardaarantay gabadha shaqaalaha ahayd, laakiin gabadha shaqaaluhu waxay u eekayd mid shaqo badan marka waalidku arkayo iyo weliba mid nadaafad badan. sidaa awgeed guriga waxay ka tegi jireen subaxda, waxay usoo noqon jireen casarka. waxay arki jireen isagoo shay walba nadiif yahay, weliba hagaagsan yahay. maalmaha ka mida ay hooyadii waxay dareentay xanuun iyo daal. waxay garaacday ninkeedii, waxay u sheegtay xanuunka iyo daalka degdega ah. wuu ka murugooday, wuxuuna u sheegay in duhurka uu kusoo tukanaya masjidka u dhow shaqada, kadib uu imanayo guriga. xaaskii gurigii ayay kusoo noqotay, waxay la yaabtay maqnaashaha gabadha shaqaalaha ah iyo wiilkeedii yaraa. markii ay weydiisay wiilkeedii weynaa, xaggee tagtay gabadhii oo meeye walaalka, wuu soo istaagay isagoo cabsanaya oo jahwareersan. wax jawaab ah muu siin. maqsinkiisii ayuu galay isagoo ooyaya. gabadhii waxay ku dhowaatay inay waalato, laakiin way isxakamaysay. waxay wiilkeedii ula dhaqantay si naxariis badan. kii uu ku kalsoonaaday hooyadii wuxuu ku yidhi isagoo oo ooyaya, waxaan doonayay inaan kuu sheego, laakiin waan ka baqayaa. midida gabadha shaqaalaha ahayd, midida inta ay dhiig soo mariso ayay waxay noo sheegi jirtay in ay dishay aabbaheed iyo hooyadeed, kanna inuu yahay dhiigoodii. haddii aanu maqli weyna aniga iyo walaalkay hadalladeeda oo aan oofin weyna amaradeeda, in ay nagu samaynaysa waxay ku samaysay waalidkeed. imika hal bilba markaaad baxdaan adig iyo aabbo waxay qaadan jirtay walaalkay, waxaanay soo noqon jirtay inta aydaan iman idinku hooyo. marka uu walaalkay diido inuu raaco ee uu ka ooyo, waxay jidhkiisa ku dhadhajin jirtay mashiinka wax lagu nadiifiyo ilaa uu xanuunku ka bato oo uu ilmeeyo. hooyadii way naxday oo argagaxday wixii ay maqashay. waxay sugtay inta ay imanaysa gabadha shaqaalaha ahayd iyo inankeedii. si kadis ah waxaa u yimid markiiba ninkeedii oo ay la socdaan gabadhii shaqaalaha ahayd iyo inankiisii. isaga oo xanaaqsan wuxuu ku yidhi xaaskiisii, waxaan u baxay sidaan usoo tukada salaada xagga iyo masjidka. markii aan ka soo baxay waxay ahayd wax lala yaabo. waxay ku dawarsanaysay inankayga isagoo ku jira xaalad aad ka naxayso. hooyadii waxay isku dayday inay ku xadgudubto gabadha shaqaalaha ah ilaa uu ninkeedu u diiday si aanay u gelin dembi dil ah. wuxuu ku idhi xaaskiisii, beri ayaan eryayaa gabadhan, waxaanan u malaynayaa inaad ku qanacday hadalkayga. gabadha ka doorata shaqada gurigeeda, shaqo kale iyo caruurteeda, kuna aaminta mas-uuliyadda gurigeeda. gabadh shaqaale ah way ka sheekeen doontaa. maalintii labaad way tagtay gabadh shaqaalaha ahayd. hooyadiina waxay go'aansatay in ay caruurta tarbiyadeyso iyo in ay ka daweyso raadadka xumaa ee ay ku reebtay gabadha shaqaaluhu. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.